madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa si rasmi ah raaligelin uga bixiyay weerar hore oo ay dowladda Iiraan ku qaaday qaar ka mid ah dalalka dariska la ah kuwaas oo sababay walaac siyaasadeed iyo xiisad amni oo ka dhalatay gobolka Bariga Dhexe. Hadal uu jeediyay madaxweynaha Iiraan ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay ka xun tahay saameynta ay weeraradaasi ku yeesheen dalalka dariska la ah Iiraan, isagoo caddeeyay in Iiraan aysan ujeedadeedu ahayn in ay dhaawacdo xiriirka ay la leedahay wadamada gobolka ama ay u horseedo colaad cusub. Waxaa raaligelin ka bixinaya wax kasta oo walaac ama culeys amni ah oo ay dareemeen dalalka dariska la ah Iiraan. Ujeedadeenu ma ahayn in aan xiisad abuurno, balse waxaan mar waliba mudnaanta siinaynaa xasiloonida iyo ammaanka gobolka, ayuu yiri madaxweynaha Iiraan. Mas-uuliyiinta Iiraan ayaa hore u sheegay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa la xiriira arrimo amni iyo difaac, iyagoo ku doodaya in ay beegsadeen kooxo ama xarumo ay ku eedeeyeen in ay khatar ku yihiin ammaanka Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa ku adkeysanaysa in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa isdifaacid ah oo loogu jawaabayo hanjabaado ka dhan ah dalka. Si kastaba ha ahaatee, dalalka qaar ee gobolka ayaa cambaareeyay weeraradaasi, iyagoo sheegay in ay ku xadgudbeen madax banaanida dalalkooda isla markaana kordhiyeen xiisadda siyaasadeed iyo amni ee gobolka. Madaxweynaha Iiraan ayaa hadalkiisa ku muujiyay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay bilowdo wadahadallo iyo iskaashi cusub oo ay la yeelanayso dalalka dariska la ah Iiraan si loo xoojiyo kalsoonida iyo wada shaqaynta gobolka. Wuxuu sidoo kale ku baaqay madaxweynaha Iiraan in dalalka gobolka ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xalinta khilaafaadka jira iyada oo loo marayo wadooyin diblomaasiyadeed halkii ay ka ahaan lahaayeen tallaabooyin militari oo sii horin kara colaadaha gobolka Bariga Dhexe. Gobolkeena wuxuu u baahan yahay xasilooni iyo wada shaqayn. Waxaan aaminsanahay in wadahadal iyo isfahan ay yihiin wadada ugu wanaagsan ee lagu xallin karo khilaafaadka jira, ayuu yiri madaxweynaha Iiraan. Hadalka raaligelinta ah ayaa imaanaya xilli Bariga Dhexe uu wajahayo xiisado siyaasadeed iyo kuwa militari oo sii kordhaya, iyadoo ay jiraan murano u dhexeeya quwadaha gobolka iyo saameynta ay ku leeyihiin arrimaha amniga. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya in raaligelintani ee Iiraan ka timid ay noqon karto tallaabo muhiim ah oo lagu dejinayo xiisadda isla markaana lagu furayo albaabyo cusub oo wadahadal iyo diblomaasiyad ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah khubarada ayaa aaminsan in tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu muujinayo kalsooni dhis ay muhiim u yihiin si loo hagaajiyo xiriirka Iiraan iyo dalalka dariska la ah. Inkasta oo hadalka madaxweynaha Iiraan uu muujinayo doonis lagu hagaajinayo xiriirka gobolka, haddana waxaa weli la sugayaa sida dalalka dariska la ah Iiraan ay ugu falcelin doonaan raaligelintaasi iyo haddii ay keeni doonaan isbeddel muuqda oo ku yimaada siyaasadda gobolka. Diblomaasiyiinta iyo falanqeeyaasha arrimaha caalamiga ah ayaa tilmaamaya in mustaqbalka xasiloonida gobolka Bariga Dhexe uu ku xirnaan doono sida dalalka gobolka ay u maareeyaan khilaafaadka jira isla markaana ay u xoojiyaan wada shaqaynta iyo kalsoonida dhexdooda ah.